والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروسي أنكو قادنني سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتابك خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. وحان سو قارني زواجه بالسيدة خديجة، guurkuu nebigu uu guursanayay haweenaydii khadiija. bacda rujuucihi, markii uu ka soo noqday nebigu calayhi الsalaatu wassalaam shaam uu ka soo noqday, bishahrayni 2 bilood looga joogo min safratihi thaaniya, safarkiisaa labaad uu shaam ku tegey, tasawaja waxa uu guursaday bisayidati khadiija, haweenaydii khadiijo ayuu guursaday. wahiya alatii iyadaana khatabathu doontay, oo haweeney ay asxaab ahaayeen oo nafiise la odhanayay ayay u dirsatay. nebigu sala allahu calayhi wasalam, waxaan ka soo hadalnay darsigii hore inuu u shaqeeyey haweeneydan khadiija, iyadaa u yeedhatay oo ku tiri kaalayo ii shaqee, lacagtaydan iigu shaqee, faa'iidana waan ku siini. markay aragtay akhlaaqdiisii iyo ammaanadiisii iyo barakadiisii iyo faa'iidada badan uu soo hooyey, wiilkii yaraa ee raacisay maysare la odhanayay ayaa isna u waramay ficnidiisa moxamed calayhi salaatu wassalaam. markaasay go-aan gaadhay inay wiilkan dhalinyarta ah inay guursato. iyadaa doontay, iyadaa u sheegatay, gabadh ay asxaab ahaayeenoo nafiise la odhanayay, isku fiicnaayeen, ayay u dirtay oo tiri iila hadalo u sheeg. bacda rujuucihi, markii uu soo noqday bishahrayni 2 bilood looga joogo min safratihi, safarkiisa athaaniyati ee labaad, safarkiisii labaad 2 bilood marka laga joogo, tasawaja waxa uu guursaday bisayidati khadiija, haweenaydii khadiija ayuu guursaday. wahiya alatii iyadaana khatabathu doontay. wa kaana cumruhaa, cumrigeegu da-deedu waxa uu ahaa 40 sana, 40 jir ayuu ahaa. wa cumruhu sala allahu calayhi wasalam, nebiga da-diisuna 25 sana, 25 sano ayuu jiray. iyadu 40, isaguna 25. waxay ka weyn tahay 15 sano ayay ka weyntahay. wa kaanat waxay ahayd qablahu, nebiga hortii, mutasawijatan mid la guursado uu guursaday abihaala, odayga la yidhaahdo abuhaala ayaa soo guursaday. wa kaanad waxay ahayd qablahu, nebiga hortii, mutasawijatan mid soo guursatay biabihaala, odaygaa la yidhaahda abihaala ayay soo guursatay. waqad maata wuu ka dhintay odaygaas. walahu waxayna u lahayd walad bay u lahayd, minhaa iyada xaggeega, ismuhu waladka magiciisa haala la yidhaahdo, oo abi haala waa aabihii haala. waqad aqaamat, nebiga waxay la deganayd, ay la noolayd, maca rasuuli, nebiga maciisa 25 sana, 25 sano ayay la sii noolayd. nebigu 25 jir isaga oo ayuu guursaday. khadiija ay la sii noolay nebiga calayhi salaatu wassalaam 25. nebiga oo 50 jira ayay dhimatay. iyadu waktigan waa 40 jir, 25 sanoy nebiga la sii noolayd. imisay noqon? waa darsiga la raba inaad ka soo shaqaysid. wa kaanat waxay ahayd qablahu, nebiga hortii, mutasawijatan mid soo guursatay biabihaala, abihaalay soo guursatay. waqad maata wuu ka dhintay abuhaala. walahu xaalo oo nebigu abuhaala ay u lahayd walad bay u lahayd, minha iyadu ay u dhasho, ismuhu magaciisa la yidhaahdo haala. culamada qaarkood waxay idhaahdaan hind ayaa la ohan jiray. waqad aqaamat waxay la noolayd maca rasuuli, nebiga maciisa 25 sanatan, 25 sano ayay la noolayd. walam yatasawaj gayrahaa, ama calayhaa baa ficnayd, walam yatasawaj ma guursan intaa uu iyada uu la noolaa gayrahaa, geyrkeed ma guursan, xataa tuwafiyat ilaa ay dhimatay.
lama guursan haweeney kale inta ay noolayd walam yatasawaj ma guursan hayrahaa hayrkeed xataa tuwafiyat ilaa ay dhimatay marka iyadu dhimatay ayuu dumar kala guursaday nebigu calayhi salaatu wassalaam as'ila su-aalo mataa tasawaja xilimuu guursaday bisayidati khadiija kam kaana cumruhaa da-deedu imisa ayuu ahaa yowma tasawaja biha maalinka iyada u guursaday kam kaana cumruhu sala allahu calayhi wasalam nebiga cumrigiisuna imisuu ahaa biman kaanat asayidatu khadiija mutasawijatan qablahu khadiija nebiga hortii ayay soo guursatay kam sanatan aqaamat maca rasuul nebiga imisa sano ayay la noolayd alkhulaasa gebagabadii bacda rujuucihi markii uu soo noqday bishahrayni 2 bilood laga joogo tasawaja waxa uu guursaday bisayidati khadiija haweeneydii khadiijo la oranayay ayuu nebigu guursaday markii safarkiisii labaad ee shaam uu ka soo noqday 2 bilood laga joogo wa kaana cumruhaa da-deedu waxa uu ahaa 40 sana 40 jir ayuu ahaa bacda zawaajihaa markay soo guursatay kadib abihaala walabithat waxay la nagaad oy la noolayd macahu nebiga maciisa 25 sana 25 sano ayay nebiga la noolayd calayhi salaatu wassalaam xukmuhu waa xukumkii nebigu uu kala xukumayey bayna quraysh dhexdeeda quraysh baa isqabsan doonta nebiga kala xukumaya maxay isku qabsadeen fii wadci alxajari alaswad dhagaxa madow xajaru aswadka la yidhaahdo meeshiisa dejintiisa ayaa la isku qabtay darsigani saas weyn ciwaankiisu xukmuhu nebiga xukumkiisii bayna quraysh dhexdeeda uu kala xukumayey fii wadci alxajari alaswad dhagaxa madow meeshiisa ayaa la isku qabtay taasuu kala xukumaya fi 35 35 jir markii uu gaadhay min cumrihi nebiga cumrigiisu da-diisu hadamat waxay dumisay quraysh alkacbata kacbadii bay dumiyeen wajadadat waxay cusboonaysiisay binaa'ahaa kacbada dhisinteedii waxaa dhacay roob badan baa da-ay daad baa galay kacbadii baa duntay saqafkaygii baa gaabtay tuug baa timid oo kacbada wax ka xadxaday kacbadiibaa markaa waxaa lagu heshiiyey ay quraysh ku heshiisay inay dumiyaan oy dib u dhisaan waxay yidhaahdeen ayaanu gelin beytka ilaaha ilaa xoolo xalaalah oo wanaagsan mooyaane wax kale ayaanu gelinin kadibna waxay ka cabsadeen kacbadan siday faas ugu qaadan lahaayeen ee u dumin lahaayeen waxoogaa bay ka joogsadeen oday la oran jiray alwaliid ibn almugiira oo khaalid aabihii ahaabaa soo booday almakhzuumiy isagaa yidhi anigu eego oo faaskan qabadsiin ilaahay gurigiisa wanaag baan rabnaayo inaan dib u dhisnaan rabnaa marka haddii aniga dhibaata ay qabsato ka joogsada haddii kalena ilaahay weynoo ogol yahee han dhisna gurigiis faaskii buu qabadsiiyey caadi buu noqday waxay quraysh bilowday inay dhisto kacbadii bay kala qaybsadeen qabiil walba waxaa la yidhi dhinac ha dhisto qolo walba dhinac ayay bilowday marka inay dhisto laakiin nidaamka qaabka loo dhisayo nin bay dibadda ka keenteen roomaan u dhashay oo baaquum la oranayay ninkaasi ayaa nidaamkii iyo qaabka u dhisayaan iyo waxaas oo dhan waday xoolihii ay soo ururiyeen waxay dhisi kari weyday intii nebi ibraahim uu dhisay ayay dhisi kari weyday marka way soo yaro gaabiyeen calaamadna way u sameeyeen xijru ismaaciil meesha la yidhaahdo ayay u sameeyeen kadib quraysh kacbadii markaas sidaasi ku bilaabeen inay dhisaan nebiguna uu kala qayb galay dhismahaasi calayhi salaatu wassalaam fi 35 35 jir min cumrihi nebiga cumrigiis markii ay gaadhay hadamad waxay dumisay quraysh alkacbata kacbadii bay dumiyeen wajadadat waxay cusboonaysiisay binaa'ahaa dhismaheegii waqad ishtaraka macahum nebiguna uu kala qayb galay uu la wadaagay fii binaa'iha dhismaheegii uu kala qayb galay nebigu calayhi salaatu wassalaam wa kaana waxa uu ahaa nebigu yaxmilu kii qaada alxijaarata dhagaaxda
maca ashraafi quraysh quraysh raggaygii sharafta lahaa ayuu dhagaxa gurayuu la guri jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. wa macahu nebiga maciisa waxaa ahaa camuhu adeerkii alcabaas, cabaas ayaa nebiga maciisa ahaa oo la shaqaynayay. waqad ishtaraka wuu kala qayb galay macahu macooga sala allahu calayhi wasalam fii binaa'iha dhismaheega. wa kaana waxa uu ahaa nebigu yaxmilu kii qaada alxijaarata dhagaaxda maca ashraafi quraysh, quraysh raggayga sharafta lahaa markay dhagaaxda ay gurayeen ay dhisayeen ayuu isna la gurayey. wa macahu nebiga maciisa waxaa ahaa camuhu adeerkii alcabaas. markay dhagaxa ay gurayaan qofkii laba dhagax leh, laba go' leh, go' buu qaadayo iskaga dhigayay dhagaxa. qofkii hal go' lena wuu isqaawinayey. nebigu hal go' ah ayuu lahaa, wuu diiday inuu isqaawiyo. cawradiisa weligeed lama arag nebiga calayhi salaatu wasalaam. adeerkiibaa markaa isku dayey inuu go-a ka jiido, nebigu wuu dhacay calayhi salaatu wasalaam sidii qof sooxa oo kale uu u daayey. kadib quraysh markii ay kacbadii ay dhiseen waxay isku khilaafeen xajaru aswadka meeshiisa godkiisa ayaa dhigi. wakhtalafat way isku maandhaafeen qurayshun quraysh fii man ayaa yadacu dhigi alxajar alaswad dhagaxa madow makaanahu meeshiisa ayaa dhigi. dhagaxa la salaame ee la dhunkado meeshiisa ayaa gelin baa la isku khilaafa. uma kadib itafaquu waxay ku heshiiyeen calaa an yakuuna inuu noqdo alxakam ka kala xukumaya awalu daakhilin min almasjid, qofka masjidkaa ugu soo horgala. albaab bay tilmaameen. odaygii umaya ibn mugiira ayaa wuxuu ragow inteenaa meesha joogta maahina qofka albaabkaa ugu soo horgala masjidka ayaa ina kala xukumi. qabiilka uu yidhaahdo qabiilkaasaa dhigi raali ma ka tihiin? haa baa la yidhi. fa kaana waxa uu noqday awala daakhilin qofkii ugu horeeyey ee soo galay rasuul allahi, rasuulkii ilaahay buu noqday. fa farixat quraysh, quraysh way ku farxeen bihi nebiga. wa qaaluu waxay yidhaahdeen radiina, raali baan ka nahay bilamiin. maxamed alamiin baa la ohan jiray, maxamedkii aaminka ah, raali baan ka nahay yidhaahdeen. waan ogolnahay isaga xukunkiisa. waxay ogyihiin nebigu inuuna reelna u eexanayn ayay ogyihiin. laakiin waa xujo, siduu yeeli intan oo reerood oo is haysata ayaa la rabaa inuu kala xukumo. muxuu yeeli marka? fa wadaca wuxuu dhigay nebigu alxajara dhagixii fii ridaa'in go' buu yihi keena, go-ii baa la keenay. wuu goglay nebigu calayhi salaatu wasalaam. dhagixii buu qaado bartanku dhex dhigay. wa talaba wuxuu ka codsaday min kulli ra'iis, nin walba oo madaxa, reer u madaxa, an yumsika inuu qabto bitarafin, dhinac inuu ka qabto min aridaa'i go-a. mid walba wuxuu hi dhinac ka qabta. gebi reerihii oo dhan way ka wala qayb galeen. uma amarahum, kadibna wuxuu amray birafcihi inay kor u qaadaan. falamaa waktigii wasaluu bihi ay soo gaarsiiyeen dhagixii ilaa mowdicihi meeshii la dhigayey, akhadahu rasuulu, nebiga ayaa qaaday biyadihi, gacantiisuu ku qaaday. wa wadacahu wuu dhigay biyadihi shariifa, gacantiisii sharafta lahayd ayuu godkii ku geliyey. way soo qaadeen iyaku meeshiiba keen, way ka qayb galeen. isaguna dhagaxa wuu dhammaystiray oo meeshiisii buu dhigay. fazaala alkhilaafu, khilaafkiibaa sidaa ku tegey, ku baaba'ay bixukmihi, nebiga xukunkiisa. watacajabat waxay ka yaabtay qurayshun quraysh min quwati fikrihi, fikirkiisa nebiga iyo xooggiisa ayay ka yaabeen. fikirkiisu xoog badanaa bay yidhaahdeen. allah siduu u fikirayaa, ilaahay baa soo ilaalsanaya. ilaahay ayaa soo diyaariyey maskax badan, ammaano badan, adkaysi badan, sabir badan. intaas oo dhan ayuu ilaahay soo baray nebigiisa calayhi salaatu wasalaam. waxaan ku yaro celina intan. waاkhtalafat qurayshun, quraysh waxay isku qabatay, isku maandhaafeen fii man yadacu ayaa dhigi alxajar alaswad, xajaru aswadka makaanahu meeshiisa. uma kadib itafaquu waxay ku heshiiyeen calaa an yakuuna inuu noqdo alxakamu ka kala xukumaya awala daakhilin, qofka ugu horeeya ee soo gala min almasjid, masjidka. fa kaana waxa uu noqday awala daakhilin, kii ugu horeeye soo galay rasuul allahi, rasuulkii ilaahay buu noqday.
fafarixat qurayshun bihi quraysh aad bay ugu farxeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen radiinaa raali baan ka nahay bilamiin maxamed alamiin raali baan ka nahay fawadaca alxajara dhagixii buu dhigay fii ridaa'in go ayuu dhex dhigay wa talaba wuxuu ka codsaday min kulli ra'iisin nin walba oo reer u madaxa an yumsika inuu qabto biطarafin dhinac uu ka qabto min aridaa'i go-a uma amarahum kadibna wuxuu amray birafcihi inay kor u qaadaan falamaa waktigii wasaluu bihi dhagixii ay soo gaarsiiyeen ilaa mowdicihi meeshiisii akhadahu rasuulu nebiga ayaa ku qaaday biyadihi qacantiisa wa wadacahu isagaa ku dhigay biyadihi shariifa qacantiisii wanaagsanayd ayuu godkiisii ku dhex dhigay fazaala alkhilaaf khilaafkii baa zuulay bixukmihi xukunkiisiiba ku zuulay watacajabat qurayshun qurayshna waxay ka yaabeen min quwati fikrihi fikradda nebiga xooggeega ayay ka yaabeen as'ila su-aalo mataa xilimay jadadad qurayshun quraysh ay cusboonaysiisay binaa'a alkacba kacbada dhismaheegii hal ishtaraka macahum nebigu muu kala qayb galay fii ayi shayin ikhtalafuu maxay isku khilaafeen isku maandhaafeen man kaana awala daakhilin kii ugu horeeyey soo galay ayuu noqday kayfa xakama baynahum siduu ku kala xukumay alkhulaasa waa nuxurkii gebagabadii lamaa waktigii balaga uu gaadhay 35 sana 35 markii uu gaadhay jadadad waxay cusboonaysiisay qurayshun quraysh binaa'a alkacba kacbadda dhismaheegii waxakamathu waxay ka codsatay inuu kala xukumo fii wadci alxajar dhagaxa dhigisiisa mowdicahu meeshiisa xukun bay samaysatay qof kala xukuma oo nebigu ahaa faqadaa wuxuu xukumay raashidan isaga oo la hanuuniyey waxakama wuu xukumay muwafaqan isagoo ilaahay u waafajiyey si wanaagsan oo raali ku yihiin ayuu arintaasi ku dhameeyey darsigeynina intaasu ku dhan yahay wsala allahuma calى sayidina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin